bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV caawa idin haya waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun la yaab leh ku riday wariye ka tirsanaa warbaahinta goobjoog oo shalay lagu xiray Muqdisho. Itoobiya oo sheegtay in Somaliland iyo Puntland ay u aqoonsan tahay maamulka hoostaga Soomaaliya. nin Itoobiyaan ah oo loo magacaabay agaasimaha maamulka hawada Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre oo bilaabay qorshe lagu kala qaybinayo beelaha dega Galmudug. odayaal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda beesha Habargidir oo markii saddexaad diiday caasimada u fidiyay madaxweyne Farmaajo iyo safiir cusub oo loo magacaabay Sacuudiga saameynna ku yeelatay safiirada Soomaaliya u fadhiyay dalalka Suudaan iyo Masar. wararka dibadda wararka TV caawa idin haya waxaa ka mid ah Masar oo gacanta ku dhigtay nin ay hore dil ugu xukuntay iyo taageerayaasha madaxweyne Trump oo bilaabay in si iskooda ay darbi uga dhisaan xadka Mareykanka uu la wadaaga Mexico. daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan. haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena ku cusub barta YouTube-ka fadlan subscribe dheh barteena si aad u heshid warar iyo warbixino quseeya Soomaaliya iyo caalamka. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun dad badan ay la yaabeen ku riday wariye Cali Aadan Muumin oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala warbaahinta goobjoog ka oo ay shalay xireen ciidamada booliiska Soomaaliya. wariyaha oo shalay gelinkii dambe la geeyay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxaa loo ballamay maanta oo Arbaca kadib waxaa soo baxay xukun la yaab leh oo dad badan oo reer Muqdisho ay la yaabeen. maxkamadda ayaa sheegtay in wariyaha ay dacwad ka soo gudbiyeen siday hadalka u dhigeen borotokoolka madaxweyne Farmaajo, booliiska Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada. maxkamadda ayaa wariye Cali Aadan Muumin ku xukuntay inuu xabsiga ku sii jiro ilaa inta uu ka dhamaanayo imtixaanka dugsiyada sare ee ka socda Soomaaliya. imtixaanka dugsiyada sare ayaa dhamaanaya maalinta Jimcaha ah waxaana wararka qaar ay sheegayaan in maxkamaddu ay amartay in xoriyadiisa dib loogu celiyo maalinta berrita oo Khamiis ah saacadu marka ay tahay 1:00 duhurnimo. Cali Aadan Muumin ayaa intii waqtigaasi ka dhiman waxa uu ku sii jiri doonaa gacanta ciidamada booliiska gaar ahaan qaybta dambi baarista ee CID-da. xukunka ayaa noqonaya mid la yaab leh waxaana xogta hoose ay sheegaysaa in maxkamadda gobolka Banaadir ay diiday markii hore in ay dacwadan qaado maadaama ay sheegtay maxkamaddu inaysan dacwo ahayn Facebook qoraal lagu soo qoray. cadaadis weyn oo kaga yimid dhinacyada soo dacweeya Cali Aadan Muumin ayaa keentay in maxkamadda ay qaadato go'aanka oo u muuqda in ay tahay mid lagu doonayo in lagu qariyo sida sharci darrada ahayd ee xoriyadda looga qaaday wariyahaasi. dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in maamulada Somaliland iyo Puntland ay u aqoonsan tahay inay ka mid yihiin maamulka hoostaga Soomaaliya. Itoobiya ayaa ka hadashay qoraal lagu arkay bogga internetka ee wasaaradda arrimaha dibadda ka oo Somaliland iyo Puntland loogu daray liisaska dalal ay matalaad diblomaasiyadeed ku leeyihiin Itoobiya waxa ay sheegtay in ay aqoonsan tahay madax bannaanida Soomaaliya. afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa BBC-da u sheegay in Somaliland iyo Puntland ay u aqoonsan yihiin in ay yihiin maamulka hoostaga dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaan safaarad ku leenahay Muqdisho. Somaliland iyo Puntland waxa ku leenahay xarumo diblomaasiyadeed ayaa uu yiri afayeenkaasi u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya. boggeena arrimo badan ayaa ka muuqda waan eegaynaa ayaa hadalkiisa uu ku sii daray afayeenkaasi u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya. dad badan wali waxay xasuustaan qariiradii Itoobiya ee Soomaaliya meesha ay kaga saartay balse mar kale Soomaalida isticmaasha baraha bulshada ayaa ka careysan qoraal kale oo ka soo muuqday bogga wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya. barta rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa dal ahaan u diiwaan gelisay jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland. wasaaradda oo tixaysay dalalka ay xarumaha diblomaasiyadeed ku leeyihiin ayaa dal ahaan u diiwaan gelisay Somaliland iyo waliba Puntland. jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland ayaa sheegtay inay ka go'day Soomaalida inteeda kale balse aqoonsi caalami ah wali ma aanu helin. maamulka Addis Ababa ayaa markasta xiriir dhow la lahaa dhammaan madaxdii soo martay Soomaaliya tan iyo burburkii waxayna sidoo kale martigeliyeen kulamo badan oo ujeedadiisu ahayd nabadeynta Soomaaliya. tan iyo markii isbeddelka uu ka dhacay dalka Itoobiya xilkana uu qabtay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaa soo hagaagaya xiriirka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya. dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa hore u sheegtay inay ka faa'iideysanayso isbeddelka siyaasadeed ee geeska Afrika. dadka arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda ka faalloodo waxay aaminsan yihiin in arrintan ay muddo soo jiitamaysay. Yuusuf Garaal Cumar oo ahaan jiray wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in dowladda Soomaaliya aysan ka aamusin arrintan Itoobiya ay ku kacday. 2 sano ah
oo uu ku hogaamin doono maamulka hawada Soomaaliya waxaana goobjoog ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar iyo mas'uuliyiin kale heshiiskan ayaa is-afgaradkiisa waxaa lagu gaaray dalka Morocco ee qaaradda Afrika waxaana uu ninkan saxiixay maalmo ka hor sida aanu ku helnay xogta oo ay la wadaageen mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda duulista rayidka Soomaaliya waxa uu maamuli doona dhammaan duulimaadka iyo hawada Soomaaliya isagoo qaadan doona $10,000 oo mushaar ah iyo lacag kale oo gunna sidoo kalena waxa uu yeelan doona fasax iyo xuquuq kale oo dhanka shaqada ah sidoo kale waxa uu maamuli doona dhammaan lacagaha laga helo duulimaadka hawada Soomaaliya ee qadka ama hawada Soomaaliya lagu kireeyo sida ay noo sheegeen dadka aan la hadalnay ee xogtana siiyay muwaadinkan Etoobiyaanka waxa ku xigeen u ah muwaadin kale oo Etoobiyaan ah oo hore u ahaa madaxa operationka madada caalamiga ee duulimaadka qaramada midoobay ee dhanka hawada Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa sameysay laba dalab oo arrintan ku saabsan balse laga diiday markii u dambeysay xukuumaddu waxa ay dalbatay in muwaadin Soomaaliyeed xilkan loo magacaabo waxa uuna ahaa dalabkii koobaad oo lagu gacan seeray halka markii labaad ay dalbatay in loo magacaabo muwaadin kale oo aan ahayn qof u dhashay Itoobiya iyo Soomaaliya iyadoo markii dambe laga diiday dalabkaasi kale waxaana lagu cadaadiyay inay ogolaato in ninkan Etoobiyaanka loo magacaabo maamulka hawada Soomaaliya madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa bilaabay qorshe lagu kala geynayo beelaha dega Galmudug magaalada Muqdisho waxaa ka socda kulamo gaar ah oo ay wadaan wakiilo ka socda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxayna la yeelanayaan qaar ka mid ah beelaha dega Galmudug shabakada wararka TV ayaa ogaatay in kulamada lagu doonayo in odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta ay kaga soo horjeestaan madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo hogaamiyaha maamulka Ahlus Sunna wal Jamaa ee dhawaan ku biiray Galmudug Muqdisho waxaa ka dhacay dhowr jeer kulamo aan loo dhameyn oo la qaatay siyaasiyiin iyo odayaasha Galmudug waxaana kulamadaasi hormuud u ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya xogta aan helnay ayaa sheegaysa in odayaasha loo ballan qaaday adduun lacageed isla markaana laga dalbaday inay ku dhawaaqaan inuu dhamaaday waqtigii madaxweyne Xaaf dawladda Soomaaliyana ay kala shaqeyn doonto sidii ay doorasho uga dhici lahayd Galmudug filla Soomaaliya waxay dadaal ugu jirtaa sidii ay doorasho ugu qaban lahayd dhamaadka sanadkan deegaanada Galmudug balse waxa ay wajahaysaa cabasho badan oo uga imaanaysa xubnaha xildhibaanada ah ee Galmudug iyo siyaasiyiinta deegaanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa arrinta Galmudug u maray xildhibaano ay isku hayb yihiin wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo siyaasiyiin la dhacsan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre warar ay heshay shabakada wararka TV ayaa xaqiijinaya in odayaal badan iyo siyaasiyiin loo ballan qaaday xilal muhiim ah oo laga siin doono dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Galmudug halka qaar kalena loo ballan qaaday malaayiin lacag ah haddii ay soo afjaraan khilaafka Galmudug lama oga sida ay ku dhamaan doonto xaaladda Galmudug ha yeeshee waxaa muuqata in uu jiro isjiijiid iyo kala jiidasho ka bilaabatay dhinaca dhaqanka oo hadda ka madax bannaan khilaafka Galmudug haddii ay dhaqanka ku biiraan xiisadda Galmudug waxaa laga cabsi qabaa in dhibaatada Galmudug ay isu rogto dagaal sokeeyo oo aan laga soo kaban maadaama ay deegaanka degaan beelo lagu tiriyo dadka mayalka adag odayaal waxgarad ka soo jeeda beesha Habargidir ayaa markii saddexaad diiday casuumaad uu u fidiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa markii saddexaad muddo 10 cisho ah gudahood baaqday kulan afurin ahaa oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku casuumay odayaasha iyo siyaasiyiinta beelaha Habargidir si looga hadlo arrimaha ka taagan deegaanada Galmudug oo ay doorasho ku soo wajahan tahay dhamaadka sanadkan 2019 kulamadan oo ay abaabuleen xildhibaanad Ubax Tahliil Warsame wasiir Qoorqoor General Gorod iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo dhamaantood ka soo jeeda beesha Habargidir ayaa dhicisoobay sida ay noo sheegeen odayaal ka tirsan dadka ka baaqday kulankaasi balantii ugu dambeysay ee baaqatay oo ahayd habeenkii Talaadada ee lagu ballamay in kulan afura oo ay soo qaban qaabiyeen odayaasha iyo siyaasiyiinta beelaha Habargidir balse markii dambe uu suurto gali waayay kulankaasi saddexda jeer ayaa laba ka mid ah lagu ballamay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya ka hor inta madaxweyne Farmaajo uusan u ambabixin dalka Koonfur Afrika halka kan kale lagu ballamay hotelka Jasiira balse ay suurto gali weysay in ay dhinacyada aqbalaan ama ay ka soo qayb galaan kulankaasi
xildhibaanad ubax tahliil warsame ayaa talaadadii si kulul u weerartay odayaasha beesha shacab oo ay ka soo jeedo waxa ayna sheegtay inay qiimeyn waayeen kadib markii ay ka dalbatay inay ka dhageystaan warbixin ay wado oo ahaa kulanka madaxweynaha kadibna ay ka qaataan wixii ka anfaca kulanka balse ay diideen. odayaasha ayaa aaminsan haddii ay kulankaasi ka qayb galaan in laga bixin doono fasiraad qaldan in tasawiro qaldan laga qaado kadibna ay dowladda ku dhaqaaqi doonto tallaabooyin aan sax ahayn oo dadweynaha lala wadaagi doono in lagu heshiiyey. filla Soomaaliya ayaa kulamo kale ku casuuntay beelaha Abgaal, Muursade, Mareexaan, Dir iyo kuwa kale si ay uga wada hadlaan xaaladda Galmudug oo dhawaan ka dhici doonto doorashada baarlamaanka iyo midda madaxweynaha lamana oga in ay aqbali doonaan iyo in kale. dowladda Soomaaliya ayaa safiir u magacaabay dalka Suudaan iyadoo magacaabista safiirkaasina ay saameyn ku yeelatay safiirro Soomaaliya u fadhiyay wadamada Suudaan iyo Masar. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa muddo 7 gudahooda ugu yeertay in ay dalka ku soo galaan safiirada Soomaaliya u fadhiya dalalka Masar iyo Suudaan Cabdiqani Maxamed Wacays iyo Cabdirasaaq Soole. talaabadan lagu yeeray safiirada ayaa si rasmi ah loo ogeyn hase ahaatee waxaa soo baxaya warar sheegaya in la bedeli doono. safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Suudaan Cabdirasaaq Soole ayaa sanadkii hore loo magacaabay xilka safaaradda isagoo ka mid ahaa agaasimo ku-xigeenadii madaxtooyada Soomaaliya. Cabdiqani Maxamed Wacays oo ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar iyo xogayaha joogtada ee Jaamacadda Carabta ayaa muddo 4 sano ah hayay xilkaasi tan iyo markii uu geeriyooday safiirkii hore. ila ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in labada safiir uu saameyn doono isbedel lagu sameeyo safaaradaha sidoo kalena waxa saameyn doona habka awood qaybsiga ee 4.5 oo xubno ku hayb ah safaaradaha kale loo magacaabay. safiirka cusub ee loo magacaabay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya Cabdixakiin Xasan Akshir ayaa ku hayb ah safiirada Soomaaliya u jooga dalalka Masar iyo Jaamacadda Carabta waana sababta loo maleynay in Mr. Wacays loogu yeeray in uu muddo 7 ah dalka ku soo galo. golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa 5 bilood oo la soo dhaafay ansixiyay ilaa iyo 10 safiir oo aan wali safaarada loo magacaabin waxaana muuqanaya isbarbaryaac iyo isu dheelitirnaan la'aan dhanka safaaradaha ah marka la eego safiiro dhowr ah oo dalal ku yaala Afrika iyo Aasiya loo magacaabay. wararka dibadda wararka TV caawa idin hayana waxaa ka mid ah dowladda Masar ayaa gacanta ku dhigtay nin hore uga tirsanaa ciidamada qalabka sida ee dalka Masar oo hore dil loogu xukumay. mid ka mid ah raggii ay dowladda Masar aadka u baadigoobaysa ee jihadoonka ahaa ayaa gacanta u soo galay kadib markii ay ka soo wareejisay hoggaanka militariga ee dalka Liibiya. Hashim al-Ashmay oo hore uga mid noqday ciidamada qaaska ee dowladda Masar ayaa sanadkii hore lagu xiray dalka Liibiya. Hashim ayaa waxaa loo baadigoobayay oo lagu haystay inuu ka dambeeyay weerar xiriir ah oo ka dhacay gudaha dalka Masar. weerarada loo haystay Hashim waxaa ka mid ah weerarkii gaadmada ahaa ee qasaaraha badan dhaliyay ee lagu qaaday booliiska ku sugnaa saxaraha galbeed ee Masar muddo haatan laga joogo 2 sano. waxaa kaloo loo haystaa weeraro kale oo qasaare geystay oo lagu qaaday ilaalo ku sugnaa xadka Liibiya iyo Masar sanadkii 2014 isagoo maqan ayaa maxkamad ku taala dalka Masar. Hashim waxay ku xukuntay xukun dil ah. Hashim ayaa laga soo wareejiyay dalka Liibiya kadib markii madaxa sirdoonka Masar uu booqasho ku tagay dalka Liibiya halka uu kula kulmay General Khalifa Haftar oo ah hogaamiyaha militariga ee afgambiga ka wada dalkaasi. taageerayaasha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa iskooda gidaar ama darbi uga dhisaya xadka Mareykanku uu la wadaaga dalka Mexico. koox taageersan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay dhismaha darbigii ugu horeeyay oo si iskooda ay uga dhisaan xadka Mareykanku uu la wadaaga Mexico waxaana darbigaasi ku baxay qarash badan oo la sheegay inay soo aruuriyeen shacabka Mareykanka ee taageersan madaxweyne Trump. sarkaal hore uga mid ahaa ciidamada militariga ee dalka Mareykanka ayaa soo bandhigay sawirka darbiga oo ka samaysan biro oo ka socdo gobolka New Mexico. waxaa sarkaalkaasi uu sheegay inay ku baxday in ka badan 22 milyan oo dollar oo tabarucaad ah taasoo online-ka ay ka aruuriyeen sanadkii hore dadka taageersan madaxweyne Trump. tabarucaadaasi ayaa la bilaabay kadib markii aqalka Koongareesku uu diiday inuu meel mariyo dhaqaalihii uu madaxweyne Trump u baahnaa si darbi looga dhiso xadka Mareykanka uu la wadaaga dalka Mexico. arrintaas oo ahayd ballantii u weyneed ee uu qaado madaxweyne Trump intii uu ku jiray ololaha. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad kala socoteen wararka TV caawa naga inta